إن شاء الله تعالى ضد وحمانتا مرتجلين يساء أكاديمية ده هجاج roobku waa nimco ilaahay oo keenay soomaa laakiin nimcadaas mararka qaarkood haddii aan si saxa loo maarayn biyaha waa laga adag yahay laakiin waxba halaabay waxaas oo dhan see loo maarayn karaa xal ma laga gaari karaa runtii oo waara arrintaa ma laga gaari karaa mise magaaladu waxay ku sii jiraysaa sida hadda ay tahay iyo waqti dheer ku sii jiraysaa magaalada muqdisho asalkeedii horeeto waxay iska ahayd magaalo iska yar bacaad ah laamiyada ku yar yihiin waxaan u laabanayaa injineer Cumar Maxamed injineere waxaad tiri dadku markay guryaha dhisanayaan ma samaystaan wax la yiraaho muxuu ahaa water management ayagoo marka su'aashaydu waxay tahay aan ku weydiinayo water managementiga ma qofka guriga dhisan baa la rabaa inuu samaysto mise qofka injineerka ee guriga dhisaya ayaa mas'uuliyadaas leh meesha ciladu ka imaanayso ma injineerka la rabaa inuu sheego oo uu qofkan u sheego mise qofkii yacni guriga dhisanayay baa mas'uuliyadaas yacni yaa responsibility-ga ayaa leh waa la yaabaysaan aniga biyo oo laga sameeyay botsonaarada sewage-ka aan cabay systemka drainage-ka waa laga faa'iidaystaa biyaha waa la sifeeyaa dhalooyina lagu soo waxeeyaa waa la cabaa saxarada iyo waxaasna wax kale taa laga sii sameeyaa jeed badan oo hadda xamar ka mid ah oo qaar badan dad aan xoogaa aqoonta qadarinayn aqaatay engineering-ka su'aasha aan si guud labadiinaba idin weydiinayo waxay tahay wadadii inay burburto oo sidii yacni maalinkii waa la dhisi lahaa ay ku laabato roolkaas ma qolyihiin injineeriinta wadooyinka yacni noo xisaabsan ayaa waxoogaa baashi muxuu ahaa gadaal ka fiiqday oo wadadii shalay madaxweynihii ama gudoomiyihii gobolka aad arkaysa iyadoo xariga laga jarayo in isla maanta haddana ay sidii hore ku noqoto ma yacni dhaliisha ayaa qaadanaya runtii musuqmaasuqu wax nolol ma ogola dadka waxay u maleeyaan inuu wax sahlan yahay marka laga hadlayo cunugaaga wixii uu ku dhimanaya wax adiga cuni karta ba adiga aad khaldi karta drainage-ka oo ama biyaha oo afar system aniga aan soo akhriyay systemkee magaalada muqdisho maaragtay ku habboon injineeri ma la tixgelin karaa magaalada muqdisho in laga wareejiyo caasimadda ummadda Soomaaliyeed loo wareejiyo magaalo kale muqdishona ay noqoto caasimadda ama iraade city trade ama xarun ganacsi loona wareejiyo magaalo kale magaaladaas oo marka aan naga saacidaysa inaan master plan-keeda sii sameeyno oo qorsheyno oo raano maxaan uga baahannahay si ay u noqoto caasimadda ummadda Soomaaliyeed marka arday ahaan ama social work ahaan yani door noocee ka saaran ama mas'uuliyad noocee ka saaran in ay yani kaga qayb qaataan dhibaatooyinka sida ay u xalin lahaayeen so markii hadda oo wadooyinka la dhisaayo so maysan lagu fikirin miya yani in wadadaasi oo sideedii lagu soo celiyo biyaheediina oo sideedii u maraan waxaan rabaa inaan weydiiyo injineerada roobabka gobolka banaadir ka da'o aad ayay u saameeyaan dadka iyo deegaanka markaad fiiriso ganacsatadeenna iyo dadka guryaha dhisanaan aad u soo badanayaan qorshahana uguma jirto wax jid la dhabo bal waxaa laga yaabaa iridda horteeda inay biyo wasaq u fadhisaa laga yaabaa bulsho ahaan maadaama dhib badan lagu qabo dadkan ay ku dhammaanayaan waxaana wax soo noqonaya ay yihiin maxaa ka tala ahaan oo la wadaagaysiin dowladda iyo dadka iyo ganacsatada aniga anoo 82 waxaan ka imid Mareykan nin oo guri nooga jiraan waxaan heshiis saxiixay Mareykan waxa guri naga deganaa markaas wuxuu maxaa barataa waa 82 maxaad barataan oo yiri waxaan bartaa engineering si maxaa loo baran weeyday markaas ay maxaa dhacay si ya mustaqbalka ya idin kala celinhayo wallahi baan maaya waa run dadku waxay u baahan yihiin mind maskaxdan in la qabto oo halkan loo jeedsho hadda meesha u jeedna meel sax maahan labadii isku timaado waxay isku khilaaftay dilaysa